dhalinyarada gobolka Cayn ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen mashruuc lagu horumarinayo ama lagu maalgelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhawaan daahfuray ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. dhalinyarada gobolka Cayn waxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u direen cabasho iyagoo sheegay inaanay ka helin xuquuqdii ay ku lahaayeen. dhalinyaradan waxay sheegeen inay iyagu u dhinteen calanka Soomaaliya iyo midnimada deegaanka waxaana ka mid ah hadaladoodii. wallahi calow hortaad baa ma hasan tahay arinkaas waxaanu aragnaa hadaan dhalinyarada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn nahay arin u dhacay si sharci darro ah arin dhalinyarada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay magaranaysaa kaga midaysan yihiin in ay arinkaas u dhacay si khaldan ama si sharci darro ah baanu taageersanahay dhalinyaradii waxaan la fikirnaa Sool Sanaag ka hadlayay insha Allah taala aan rajaynaynaa inay Soolna ka hadlaan dhaqso kaasoo ah in dhalinyaradii gobolada saddexda gobol la arki waayay in loo arkay degmooyinkeega la arki waayay goboladayadii la arki waayay isla markaana naloo aqoonsaday dhalinyaro aan ka mid ahaynba dhalinyarada Soomaaliyeed dawladii hore ee magaranaysa hogaaminayeen madaxdii hore waxa magaranaysa kaliya noo dhinayd inay yiraahdaan Soomaali ma tiidin maantana waxaan raadkii hore dawladii magaranaysa madaxdii hore hogaaminayeen bay tan raacday maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxay ahaayeen madax aanu ka rajo qabnay oo waliba gobol ahaan aanu uga rajo qabnay oo waliba dhalinyaro ahaan aanu uga rajo qabnay bay ahayd maantana run ahaantii bayra nooga muuqata waqtigoodii wax yar baa ka haray waana aragtaa in maanta ay arkiwaa dhalinyarnimo ay nagu sameeyeen. Assalaamu calaykum marka hore waxaan soo gaaray in mashruuca gobolada ICC aan wax laga siin waxaan u sheegnaa dawladda Soomaaliya in gobolada ICC ay ku dulman yihiin 30 sano ayaan calanka buluuga wadanay in maanta mashruucyadeedana la dhaafiyeen xaq in waxa la yiraahdo xaq maataas waxaan u sheegnaa dawladda Farmaajo ee Khayre in gobolada ICC ay indha gaar ku eegaan waa mashruucyadeedii ay gobolada kala siiyaan arinta meesha ku jirto khaldan anigu fikirkayga dadka meesha inoogu jiraan ahayn dadkii ina matali lahaa marka dadkaasa ina gabay baan anigu fikirkayga qabaa waayo qof walba meel dawladdu waxay u xisaartaa ama aanu dadaan soo dooranay baa jira oo xildhibaana kuwaasa ina gabay oo aan muuqanayn oo aan arrinkeeni ku jirin oo macnaheedu kor qaadida iyo horumarka deegaanka aan ka shaqeynay yaani TV-ga iyo lecture aniga ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Cayn ama SSC waxaan aad u dhaliilaynaa dawladda Soomaaliya sababtaan ku dhaliilaynaa waxay yihiin waxaanu dareensanahay gobolada SSC inay dib u dhaceen 30 sano aanu halka joognay inaan waxbad kiniina naga soo gaarin dawladda federaalka ee loo wada hanweyn yahay maanta waxaan kula sheegaynaa inaan istiraatiiji ahaan ku naalno waqooyi iyo koonfur dadkii kala goyn lahaa awood inaan u leenahay waxaan sheegnaa anigu matalin Buuhodle ayna matalin in si weyn loo hagraday hadaan nahay dhalinyarada gobolada mashruuca la sameeyay 340 ka dhalinyaro ee gobolada laga soo xulay inaanan hal qof laga soo dirin waxaanu u sheegnaa dawladda Farmaajo madaxweynaha ka yahay inaanu si weyn u dhalisanahay dawladda annagu hadaan nahay reer Buuhodle ama reer SSC waxaan nahay bridge isku xidha Soomaaliya dhamaanteed taasoo ay noo dheertay inaanu 30 sano u soo dhibanay xornimada Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya deegaanka SSC waa deegaankii ugu horeeyay looga dagaalamo xorriyadii Soomaaliya waxaanu dhaliilanaa qaybinta sharci darrada ah xariis darrada ah lagu qaybiyay lacagtaas lagu horumarinay degmooyinka Soomaaliya waxaa jira barnaamij ay dawladda nabad iyo nolol Farmaajo Khayre ay taageerayeen oo ah barnaamijka caafimaadka iyo dhalinyarada ee garoomada la dhisayay ee gobolada dhan loo dhisayay annagu waxaanu ka haynaa ma jirto wax ay noo dhisteen ma jirto dawladdu garoon baysan noo dhisin waxaysan noo dhisin xarumo caafimaad waxaysan noo dhisin wadooyin annagu waxaanu ku naalnaa meel santaraala waxaanu nahay dadkii daraawasheed waxaanu nahay dadkii u soo halgamay calanka buluuga haddana kama hayno waxii aan xaq u lahayn haddana barnaamijkan dhalinyarada lagu maalgelinayo dadkii waxaanu nahay
la rabay in loogu horreysiiyo ee weli darwiishnimadii iyo soomaalinimada ay ku jirto ee calanka buluugana u dhimanayay waxaan fariin u dirayaa xukuumaddan dowladda nabad iyo nolol waxaan leeyahay dib ha loo soo eego dhalinyarada SSC